kan kala socotaan daawadayaal waa TV-ga Somali for All oo maanta aan soo booqanay jaaliyadda Soomaalida ee Amsterdam oo halkan maanta munaasabadii ciidda si weyn loogu qabtay munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha ku dhaqan magaalada tan Amsterdam iyo gaaraheeda aad u mahadsantihiin sida lagu soo qayb gashay dhammaan munaasabadda ciidul adxada ku wada farxadda ku qaybsanayno sida la ogyahay maanta waa maalin aad u qiimo weyn gaar ahaan muslimiinta caalamka meel ka joogaan waa maalin farxadeed oo yacni isugu haniyeynayo meel kasta farxadda ciidda iyo damaashaadkeeda sidaa darteed Soomaalida magaalada Amsterdam iyo nawaaxigeeda waxa nasiib u ah inay helaan jaaniska maanta meel isugu yimaadaan oo ay ku wada dabaldegaan farxadda ku qaybsadaan insha Allah waxa inoo diyaara mowduuc yar oo diyaarsan oo aan ugu talagalay maanta inaan wada qayb qaadano community-geena barnaamijyo kala duwan oo ay dabcan wacyigelin hambaliyo majaajilooyin iyo dabcan waxyaabo kale oo xiisan geli doona laakiin marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan ku furfurano آياتها القرآن الكريم كواحد نوع قني الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. وعيقولون إيه فرشاح يعني نص جديد دونا مرتاح يصير. ما بعنا يعني وحكلي إنه فعلاً إن ما نتهلك مودي شغله وإنه قرني أهمية عائلته. waxaan kaloo markaasi mahadweyn soo jeedinaya dadka soo qaban qaabiyay ama arrinta loo isku soo dibariday oo ugu horeeya maamulka Sonfal iyo dadka kale oo mataqaanay iska wax u qabso iyo ugu shaqeeya hadii jeer dadka iyo waxyaabo fara badan oo ku qabta halkan waad ogtihiin meeshan waxyaabo badan aan lagu sameeyaa oo aan suurtageli kareen haddii dadkeenu aan isu imaan lahayn oo aanay qof walba wixii uu isagu uu kordhin karo una ku soo dari lahayn وقت أقول صح. سجود ويرتكع سجود. سؤال مستحيل. dad waxa yaqaan nin tuugsaday iyo nin la taliyay la tashaday u taliyay la tashaday leeyahay أمس أنا أمس بليس أمس أتلي يقول لي نكر dad waxa yaqaan nin u tuugsaday iyo nin u taliyay yiri calaamada calanka Soomaaliya ku dhax taalo waa xidig qoraxda iyo dayax keewa xidig waa leey يا لو قرحنا طبعا يوم يا لو قرحنا ما درك صراحه مركره هو اهل لو dad waxa u liitaa fiiriya waxa u liito
matoshte matashiisha iyo matashade ama maguursade magaboobe iyo magaabsade ama mataliye matage iyo malotage bismillah mid uu korayso ninka ama matashi matashiisha iyo matashade waxaa laga codsaday inaan maanta soo jeediyo kelmad ku saabsan barbaarinta ubadka Soomaaliyeed qaasatan ubadka halkan ku barbaaraya waxaan u maleynayaa maalin dhaweed waxaan sameeyay qoraal yar oo ka hadlaya fikirkayga aniga shakhsiyan igu aadan barbaarinta ubadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inuu noqdo qoraal tixano ah oo mar walba aan mawduuc kaga hadlo mawduucii koowaad oo aan qoray wuxuu ahaa afka Soomaaliga muhiimadda uu u leeyahay barbaarinta ubadka dad badan waan siiyay dhowr meelood oo Soomaali ay isugu timaadana sharaxaad waan ka bixiyay kulli qofkii hore aan u akhrisin hadda dhowr xabaa ka taala meesha waa akhrisan karaa sababtii igu kaliftadaan waxay ku taabtay inaan arrintan ku mashquulo qoraalna aan ka sameeyo marka koowaad horta Soomaalida inteeda badan akhrisku uu nagu yar yahay qoraalkana uu nagu yar yahay qofka waxaa laga yaabaa in maskaxdiisa ay ka buuxdo wax badan oo waayo aragnimo ah wixiina hadhowto oo la tago marka kulli aniga waxaan doorbiday inay fiican tahay intay doonto hal ekaato wax in la qoro midda koowaad haddaan ku bilaabo hay'adaha waddankan haddii tusaale ahaan oo kale meel wax ka dhacaan carruurna ay qaabilsan yihiin marka koowaad waxaa loo gudbiyaa hay-ad la dhaho IMK oo qaabilsan meldinka ayagaa lagu sameeya ha noqoto iskoolkii inuu wax u gudbiyo ha noqoto dhakhaatiirta inay wax u gudbiyaan ha noqdaan hay-adihii kale oo carruurta quseeyay inay wax u gudbiyaan qoys Soomaaliyeed baan ka turjumay macna dadka hadii aan ka hadlo marba laakiin xaaladda baan sharaxaya iyo isfaham la'aanta dhibaatada ay keeni karto dumarka caadiin waddankan qofka dumarka markay dhasho usbuuca ugu horeeya ama labada usbuuc ugu horeeya waxa caawiyo wax la yiraahdo karamsro qof dumara guriga ugu imaanaysa hawlihii guriga wixii dhan ka caawinaysa inta badan farsaykarinka lacagta bixiyo gabar Soomaaliyeed baad ilmo u dhashay ilmo kalena u joogeen sanad camal ay waddankan joogtay karamsroxi waxay aragtay raashinka ilmaha marka loo soo dhigo ilmuhu raashin ku dagaalamaya waxay iska dhaadhicaysa marka ayada indhaheeda guriga inay gaajo ka jirto baahina ay ka jirto ilmahana baahi lagu dilo waalidku waxba may weydiinin dhibaatadan maxaa keenay say wax yihiin shaqadeeda maaha caadiyan ayada guriga waxay u timid shaqo kale laakiin wixii ay aragtay mar walba ilmaha raashin loo soo dhigay raashinku way ku dagaalamayaan way isku dilayaan way isku jijiidayaan way gudbisay waxay tiri gurigaan baahiyaa ka jirto ilmahana baahiyaaba lagu dilayba waa sida idin dheheeda ahay mows qolooyinkii isla markii waalidkii warqad usoo direen waa gurigaa loogu imaaday waalidka ayagoo naxsan oo isla ilmaha loo socda bis hal saac camal markii la hadlaayay oo su-aal walba waalidkii la weydiiyey ay dhahaan maya waxba kama jiraan maya waxba kama jiraan markii dambe aniga shaqadeeda markaas turjumaanima meesha u joogaa wixii labada dhinac la dhaho keliya inaan turjumo baa meesha u fadhiya laakiin mararka qaarkood haddaad u jeedo in wixii waddo khalada ay ku socdaan inaad dhahdo ma aha keliya aniga shaqadeedaan fiirsanaya qolooyinkii aan la hadlay waxaan dhegeysta aniga waxaa ani meesha uma imaaninaan idhi maanta oo dhan inaad hal saac isku mashquushaan wixiina iyo hadalkiina isla dhaafaya keliya inaan turjumo laakiin waxaa ii muuqata in meesha isfaham la'aan weyn inay jirto marka waxaan idhi diyaar ma u tihiin labadiina dhinacba waxa aniga ii muuqdo inaan miiska soo saaro qolooyinkii waxay dhaheen ha diyaaraan unahay waxaan idhi marka banaanku bax aniga waalidka muskin dahay ujeedadeedu ma aha wixii aniga aan qabtay iyo wixii aan sameeyey inaan buunbuuniyo ama aan sharaxo laakiin tusaalaan usoo qaadaya banaanka u baxeen way ogolaadeen waalidka waxaan dhahay dhegeysta horta sababta la sheegay waxay tahay guriga baahiyaha ka jirta alle carruurta raashinka way ku dagaalamayaan dadkaana waxbaa loo gudbiyey dadkaana waxay u socdaan waxaan loo soo gudbiyey inay wax ka jiraan iyo inay wax ka jirin
muhiimadda ayaga u socdaan waa taas horta ilmihiina in markiiba la qaadanayo ma ah nidaamka waddankana ilmihii in la iska qaato markiiba ma ogola haddaad wax walba inkirtaan wax walbana maya aad soo istaagtaan baaritaanka wuu sii dheeraanaya meel fog u tagaya hadhowta aan waxba laga qaban karin marka amay ku fiican tahay haddii waxyaabaha qaarkood ay jiraan inay siday jiraan loo sheegay iyo sababta keentay iyo waxa laga qaban karo waa kala haraysaan markaas dadkaas waan weydiiyey marka waxaa idhi ma jirtaa horta waxaan la sheegaya oo la leeyahay carruurta raashinka way ku dagaalamay waalidka waxay dhaheen way jirtaa okay soo ma habboona marka intii maanta o dhan inkiraad meesha lala soo fadhiisan lahaa in wixii waxa keenay sharaxaad laga bixiyo habkii lagu baabi'in lahaayna adinka aad keentaan waxaa idhi marka hore waxaa fiican horta baahi inay guriga jirin inaad beenisaan waxaana ku beenin kartaan dadkan kaxeeya kuulkaastigiina fura guriga inuu raashin yaallo maqaasinka meelaha ay raashinka idin yaalaan hadduu raashin guriga idin yaallo tusa horta guriga inay baahi ka jirin ilaahay amarkiisu markaasayba waalidka soo adeegteenba guriga dhan wuu buuxaa kartoon baa 20 kilo bariis baradhadiya buuxda kuulkaastigi wuu buuxaa marka waxaa yidhi horta inay baahi guriga jirin waxaa caddaynaya raashin inuu guriga buuxo adoo waalid ah guriga raashin kuu buuxo ilmahaaga dee waxaad uga ceshato dee macquul ma ah wax meesha imaan kara ma ah laakiin inaad dhahda dhegaysta annaga sanadka horan waxaan ka imaan ilmaha soomaaliya ka imaadeen soomaaliyana waa la ogyahay waxaa laga yaabaa maalintii hal mar in cunto la cuno ilmahana inta badan in raashinka la isugu daro cunugana markuu baahan yahay uu ogyahay in maalintii hal mar keliya cunto ay imaanayso mar labaadka in la helayo in kale aan la ogeyn dee raashinka waa lagu dagaalamaya kulliga noo wada naqanaa dabeecadda soomaaliga soo ma marka inaad dhahdaan war carruurtan bii'adaanay ka soo baxeen bii'a kale imaadeen guriga raashinka wuu buuxaa raashin la-aan ma jirto laakiin wixii carruurta ay qabsadeen ee maskaxdeeda ka buuxa inay baaba'aan waqtigay u baahan tahay waalid ahaan waxaan diyaar u nahay in waxaas tartiib ay u baaba'aan waxyaabaha aan samaynaynin waxaa ka mid a ilmaha in qof walba la dhaho saxankaaga waa kana raashinka loogu buuxo hadduu raashinkiisa uu dhammaysto waalidka inuu dhaho ma la iigu dari karaa intuu cunuga kale saxankiisa aadi lahaa in la dhaho maya saas ma jirto kan adaa iskale saxankaana cunugaana iskale kaaga ku ekaaw hadduu kaa dhammaado hooyo ama aabo weydiiso mid kale diyaara way hadleen way soo galeen gudahay soo galeen wixii aan u sharaxin marka waxaa la dhegaysta meeshaan baahi ma jirto horta waa la kaxeeyey gurigaa la tusay maqaasinkii raashinka uu ku jiray in raashin uu ka buuxo kuulkaastigaa loo furay qaboojiyihii inuu raashin ka buuxo horta guriga baahi kama jirto raashin wuu yaalaa ayadoo guriga raashin u yaalana sabab ay waalidkii ilmahooda gaajo ugu dilaan meesha ma tahal marka qofkii waxaan gudbiyey dee ayaga wixii markaas ee aragto ee ula muuqato unba idiin keentay waxba kama jiraan horta keliya meesha waxaa yaalla dabeecaddii iyo dhaqankii ilmihii ay la qabsadeen oo baahidii iyo bii'adii ay kasoo baxeen in raashinka la booba ahayd ilmaha weli raaday ku reebaysaa waalidkana waxay dhaheen waxaan iyo waxaanan isticmaalaynaa waana ka baaba'aysaa dhib male way soo dhaweeyeen waxay dhaheen okay 2 bil kadib aan idiin imaanaynaa xaaladdan fiirinaynaa haddii xaaladdu ay degto sheekada waa iska dhamaatay 2 bil kabacdii imaadeen ilmihii waxay fiiriyaan meelihii la fiiri xaaladda way iska dhamaatay way iska baaba'day marka waxaan ula jeedaa waalidkii dhinaca waxaa ka haysata dhibaato oo ah difaaca wuxuu ku jiraa ahyaan ilmaha lagaa qaadanin dadkaana wixii loo soo gudbiyey ee ahaa gurigan baahi iyo dhibaata ka jirto ay raadinayaan inay run iyo been inay tahay marka haddii marka aan la isfahmaynin waa la isku waalanayaa waalidkiina difaacun bay galayaan ayagoo is dhahay ilmihii aan la idinka qaadanin baaritaankiyaa sii badanaa meel dheeraa la isla tagaa heer hadhowta waxay gaaraysaa meel aan wax laga qabto ay lahayn marka kolley aniga tala ahaan waxaa ila fiican marka haddii dadka meesha fadhiya waxaa laga yaaba intooda badan inay waalidiin yihiin ama aad taqaano waxyaaba noocaas hadday dhacaan in marka hore horta la isweydiiyo waxa habkee lagu xallin karaa ee markiiba aan difaac la gelin waxaa hadda inoo bilaabanaysa riwaayad ama qosol yar oo aan ugu magac darnay isma dhaanto waxaa jiraya koox yar ismaabuliin oo lagu magacaabo rajo naagtii islaamaheed maxay islaam la dhahay arooskii maaragtay waxay la imaatay dirac oo qarxay dirac oo maaragtay balaaye la imaatay maaragtay waa xawaay waa اياه قدادي هاوي لا تلفون ما بلايا صارت حيدو قدادي النسي لا هذا بلايا سقار الجناي كذا كوسعلاه اياه هذا مر نور كم تلفون ما صارت اياه هذه مسقاله وصدرت هود سلام سوقرات سوق لنا هذه ماما قدادي مين عفوا كيف قدادي دياري حق هذا الدياري لو تكي ولا بقى العقل ما هاي واتاده markay faqarka saarsi tuqay oo maalin kasta horta habarta maxaa ku saaray ma wariyaha adna meed wareerto islaanta soo raacdo
قضاء النص وريا ويلكا تورني وقضي بلاي مركز سوق ما تودي جرتي قضي عندك هيك رجل فيرا انت ولا اجي ورياها هذو مسيجار بدأتي waxaan ka awraya waa maxay adiga siyaasa ma cabtid waan anigu waan oday gaboobay baan ahay sigaarka dhammaada aynanka waxaan miyaad ku ogtahay adoo ka arka waxaan sigaari balaay quraan la imaado gurgan islaamka wadaad islaantana dayran lagu raa dayran bay قولي بابا هاي في عنتها ها أبو هي أبا ما ديارس أبدا نفتي شلا ما ديارس ما يا أبو وحيرة قديم ما قبلتك وكل كذا يا أبو أرك حري أنا ما أركت الكمبيوتر كي أنا روينا وحكا كعشق إنسان أركي أنا واحد ديارسي لك وحبا كوها بس أنا كوها بي هدول هذا USB أكو قانون دونتا هدول هذا بري ولا تيجي دونتا أدي أدبا وفرح سنة قابك ودارس أبو قرآن كم أقرأ أبو ما يا أبو درس كايدي باي قيدو إنك أقرأ سكري روحان ku sameeyna man qana dariska waa Soomaali hadda ma dacweyn karno hadda dacweyna waxaan leeyahay waa Soomaali dacweysi cidaan uga sheegana ma naqaano kuwan meel ugu guurna laan uga saara abu dadaal yaa riyaahe war cali war bal way igu kala kaxsantay qaadkii ma haysaa war islaam bay wareerisay bal qaadka ay diyaari wax oo dhan waa la helayaa bal diyaari horta صدح قارودي دياري ورياه بلاي ورجاتك waxaa sheegay dadkii reerkii xalal la yahay la haw soo dhan reerkoo dhan baan ku qabanahay kuwa arrimaha dhan baan ku kala dibaraay balaay caas adigu ordo jikada galo qadada iyo diyaari iyo maraq iyo hilib caas laga raacay war balaay korkoose dad reerka waxa cunaa malajaad lacag keen lacag lama hayo abana waa ku raacaya hagee raacay mafrashka mashajaadka لا يا ما نك ماذا شيء يروح وحبرشدي يا مال كديارين حاب يا رسالة براي كده أرضي سما كنا مارتي ورهبرتن وعلا ورياه ورعنق هي قد اللي عنق أنا سيدي توصلنا قاربة وقدميها وقتي اللي درج ولا قبح حي ما ورث ورياه ما كوش شيء إسلام تمرك الله الله يقضي دياري لا محل هذا شغل صوت هذا هذا ما أنا كسرت هاي ما حاكو صاري يوروب اللي جوجو وقدميها لا ما حسب كتير هل كمان واحد دنيا كمان عرّيت إنجليزي كمان هذا محا هذا ما ورهم هي ورعرّي إنجليزي ما هي إنجليزي محا داعي واحد دميان كور ربك ولا وين ما نقلع كوري هذا محا الدريسي وما هي إنجليزي يا ما نقولي سلواي هي هذا قوان تجي ياي والله الدريس ما يسي دياري مو ديبان قضوا دوننا يا دبل سنة قات كيبان كسرنا يا دبل سنة وينو يو الدريس كي يضوان كوجي ما قات كيو دريس اللي واحد لما هو اسكفري سنة أوكي ساسا ينوها ساسا ينوها يا سلام يا أخراي هذا جوا مقيا ويل كينا متجوجي هاي العاقسي هاي وهذا بكاشي كينا يقدر تعملنا يجوكتا وملنا هاي هاي قلدي باركت وراق وحباس ودعي العقب وكسينا وراق ذا ياخذ برد حابة وراق ذا وكسو كلا وحاول مفرش كعبال يقول لي بقولي 5 يورو عاور أنا عاو أخرى مركا إمال هاي كاسي بلايا اللي ما شيء هذا هو كو ترجمة مركا الترجمة أنا لعقتين وارا ميتي مركا اللي كو ترجمة ميد أنا كو أخرنا عاو مركا إمال هذا يصير هاي ما أنا كو قصار ولا عد وناكسنا درس كنا مارت ويركس وفي عينها راح أبرناي هاي منا عد دتك حياة غريبة هاي ويلك أنا كفي عن سماهن هاي كم في عند دوارك ويل وناكسن وقولي دوارك تسوي ناكسن يا هاي قولت ما يكفي أنا أنيقا أنا قريس أنا أقانو حكو سمعنا عاد قوالا marka hadana maalintana waa iska soo galaysa maada ixtiraamka guriga oo lahaay waxa waasma iska soo galaysa maxaa xaaja ana waxa yar Soomaalnima ku soo gal maana iskama soo galin waraaqdana iyo akhrisay odagayga magacuniga maqanaara maarad ana waqti ma hayna dhigeyso ninkaaga ninkaaga aaway oo de ururadii wax dadka saacidi jiray waxa waas maxaa anagu noo soo carraysa warqada maxaa naga nambar waxan waa maqaya maarad waxa yar Soomaaliya taan hay ugu la hadlin dariskaadana maarad muwaara islaam heen درس درس احترامي لا درس احترامي ثاني ورا أنا وقتكم ما هي عيدكي وحنا قبلنا شغلنا ذلك مريه دي ما شاء الله والله هلي وحرجينا إن شاء الله أنا سيوديت هو سيوديت بنت في عنا واه شيء ما شاء الله هذا أبو فرح سنة ذلك أنقلنا وقت أنقلنا وكمل رلس
waxaan rajeynayaa in insha allah maaragtay dadka dariska ah ee wax aan qabsanin aan sameynin misaal fiican aa u tahay ya waxaan rajeynaya insha allah inaad mustaqbalka reerka iyo guud ahaanba dadkii horena wax tarjuuleynad congratulation alla tama iyo dambe meesha darisku ma haayo dadku ma haayo odagii waa iska fogay waa iska diray ingiriiska iyo balaayada iska aaday cunugiina waa kan daroogo iyo balaayo iga bartay waxaa sameeya ma aqaan ya waxaa sameeya ma yaa i caawinaya meeshan dad ma joogo i caawinaya odagii inaa iska soo ceshta maana wax kaloo ii dhaama ma leh ha iska xumaadee guuleeda iga badbato walaa anaa barayo daroogo jaamacaduu sheegaa anaa isla mid dhigaay anaa aqaansa ogolaa darooga dhiibaa tartiiba u baraa hadduu diido meelaa kaamira lahayna raadsana waa bedila waa sax ha guuleed fiican tahay oo alaabtan qaad maqaayada muddo ayaa geenaysaa ninka muddo la yaraa u dhiibaysaa may ilaa xawaya warayda ahaa ma taabanay alaabta ma qaadaysa ma yaha may ma qaaday alaabta ma qaadaysid may ma qaaday inta soo saar kas kaamirada ka soo wareeg الله 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 ما كنا بنجي ما كنا وقت قال أمبلاس أو يا أخي wiilkii yaraa ku dadaalay wiilkii yaraan ku dadaalay oo intaasoo sana aan maaragtay ay iga dileen wiilkii wuu iga dilay haddaan shalay maaragtay asagana dariskana aan wax maaragtay wax u tari lahaa oo wiilkii aan wacyigelin lahaa oo dhihi lahaa waxbara wiilkayga muusan dileen labadiiba hadda waa waayo yaa waxaan ku samey ma garanayo aad iyo aad baan kaas waxaan uga gudbaynaa majaajiladii gaabneed ee ay noo soo jeediyeen kooxda rajo ruwaadana waxaan ugu magac darnay isma dhaanto waxyaabaha shaksiyan aniga aan arkay waxaa ka mid ah caruurta soomaalida ah ee inta ku dhalatay ama ku barbaaraysa luuqadooda hooyo waa holandaysa waalidka dhalay ee raba inay barbaariyaanna luuqadooda hooyo waa af soomaali marka meeshaas dhibaata horta ka taagan haddii waalidkii iyo carruurtii ay isfahmaynin dee maba barbaarin kartid waxaana uma sheegi kartid oo cunugaaga waxba kama dhaadhicin kartid marka su-aasha waxay tahay dhibaato ma tahay arrintaas oo aan dareensannahay inay dhibaato nagu hayso hadday dhibaato nagu haysona xalku muxuu yahay ilyas abukar arrinta cabdikariin uu ka dhawaajiyey waa arrin sax ah waxayna ila tahay arrinta waalidkay ku xiran tahay cunugan meeshuu ku dhashay waalidka dhale waa soomaali cunugan meeshaan ku dhasho afholandeeskii dhinac kasta looga hadlaya iskoolkii meel kasta marka waalidka waxaa wanaagsan markuu guriga joogo ilmaha inuu af soomaaliga kula hadlo ilmaha af soomaaliga u baro dhaqankii iyo wixiina uga sheekeeyo sidii cunuga ugu dalan lahaa ileen cunuga markuu dhalanayay luqad isagoo ku hadlaya ma soo bixin wax walba wuxuu ku bartay koonka dushiisa marka waalidka waxaa looga baahan yahay inay ilmahooda ku dadaalaan waqtina geliyaan luqadii ay baraan cunuga luqadiisii markii luqadiisii u yaqaan afkii waalidkiis oo kula hadli karo wax walbana way fududaanayaan siday ila tahay fikirkii waa kaa ama waxaan ku darsan lahaa ficil ahaan dadkeena soomaaliyeed marka hore waana ogaadaan waxay xaq u leeyihiin waxa badanaa jirta oo ugu badan waxaa laga yaabaa markii dhibaatadii badatay ee xeeriya fadhaafadhaceen inay dadkii mataqaanaa ay hawshii qabtaan waxaa fiican waalidka hadday dhibaato la kulmaan inay raadiyaan qof soomaaliya oo ku dhaama oo arrintii maaragtay kala talin karaa ama u raadin karaa wax kale ka qabtaan waxaabaan isleeyahay sababay u tahay inay ciyaalkiisa ay luqada soomaaliya bara waayaan waxaa ka mid in waalidka uu haysto hadduu canuga uu kula hadlo luqada waddanka uu degan yahay inay ilbaxnimo tahay taasaan dhibaatada keenayso la ogeysiinin inuu canuga qof soomaali yahay waddanka la jeclaysiiyo inuu marka taasoo dhan ayaa waxay keenaysaa inuu canuga markaa luqadan uu ka cararo marka xal waxay u baahan nahay inaan helno tanuuras dadkii qof kasta oo soomaaliya meesha ay degan yihiin ama xaafad inta sila degan inay isku yimaadaan ay wax barnaamij ay sameeyaan intaan ogaa badana wax badan waa laga hadlay dhibaataa jirto laakiin maan ujeedno maxaa laga qaban karaa iyo in loo dejiyo qorshe looga gudbi karo in tanuurayso la baro ciyaalka sida af soomaaliya u qori kari karaan in wax loo diyaariyo laakiin mar walba waa la sheegaa dhibaataa jirto laakiin in dadka qof kasta meesha degan tahay laga wada fikiro maxaa xala sidee u xallin karnaa arrintaan haddii markaa taa la helo
waxaan is leeyahay muddo gudaheed waa la gaari karaa waa la helayaa dad ishaag mataqaanaa si mutatawacinimo ugu shaqeeyo laakiin dad diyaar loo helo marka qaarkood waxaa laga yaabaa qof mutatawac inuu yimaado laakiin waalidkii ilmaha dhalay inuu yidhaahdo marka waxaaba aad umasan wax ka xun adduunka ma jirto ayaa cunuga in luuqad jajab lagula hadlo tusaale ahaan oo kale luuqada soomaaliga cunuga marka lagula hadlayo waxaa fiican in ilmaha marka uu yar yahay asoon hadli karin wax badan u fahmaya dadka waxyaabaha baarbaarana waxay dhaheen maskaxda ilmaha yaryar marka ay dhismayso khaasatan hadalkii hadba waxay ku xiran tahay waalidka si ay ula hadlaan haddii cunugaaga sidii qof weyn oo kale aad ula sheekaysato marka kusoo ag fadhiisanayo markaa wada cuntaynaysaan markaa meel wada aadaysaan markaa u qabaynaysid markaa wada ciyaarsiinaysid si qof weyn oo kale haddaa ula sheekaysid aadan in cunugaa wax ma fahmaayo ee santanis fiican hadal waaweyn aa kula hadashid maskaxdiisii waxay u furfurmaysaa cunugii inuu santanis iyo hadal fiican u dhihi karo 2 bil ka bacdi waxaa arkaya cunugaagii santanis samaynayo laakiin haddaa maanta aad dhahday fariiso soo qabo cun seexo hadalladii o dhan ba hadallo kooban ay yihiin maxaa ka dhalanaya marka cunuga inay maskaxdiisa u samaysanto hab inuusan tani samayn karin cunugii waxaa geynaysaa daughter spelsal ama basisqolaa geynaysaa cunugaagi lakhubadiyaa loo diraya waxaa leeyahay spractalkiisa waa muylig sababtana meel kale kama imaanin gurigay ka imaatay sababta maxay tahay cunugiyaa marka hore luuqadii soomaaligii si khaldan aan liyaran u sameeyey si khaldan u bartay wax allaala luuqad kale oo u baranayo dhana sidii u baranaa marka waa ognahay kulligeen ilmahana lakhubadiyaa loo wada diraa intooda badan wax qarsoon ma ah meel kale kama imaanin cunugii intuu ku dhashay halkaanu ku barbaaray haddana waxaa leeyahay waxbaa ka khaldan marka ani taladeedu waxay tahay kow cunuga waxaan soomaali ahaynba inaan lagula hadlin gurigu markuu joogo iyo markuu adigu kula joogo markaa banaanka joogtaan arrinta laga dhawaajiyay waa run waalidiinta qaar 20-30 waalidaan weydiiyey oo aan weydiiyey ilmahaaga markuu kula joogo luuqaday kula hadashaa inta badan waxaa la dhahay af soomaali iyo holandays isku dhex dara oo jajab ah qof dhahay luuqad soomaali keliyan kula hadlaa ma jirin waan weydiiyey sababta keenaysa maxay tahay marka cunugii waad rabtaa waa jecesha inuu af soomaaligii barto af soomaaliga adiga uu kaa barto haddana dee qofku ka baran lahay waa adiga iskuulkiisi adiga waay adigana luuqadii soomaaliga kulama hadlaysa sababta maxay tahay dadka qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa waxay ku leeyihin marka cunuga aniga keliya aan nahay waa laga yaaba inaan af soomaali kula hadlo laakiin haddii meel oo suuq oo kale ama supermarket intii lasoo galo cunugii jaa waalidkii uu isbedela cunugii af holandays oo jajabkii kula hadlaya wuxuu ku leeyahay hadda aniga cunugii keliya aan soomaali kula hadlo waxaan ka cabsanaa in naloo arko dadaan luuqadii holandayska ka siin walaga dadka kale si ku arkaan maxaa gale hadii ilmahaaga asagoo sheekaysanaya moogs waalidiinta qaarna waxay dhaheen sababta keenaysa inaan ilmahayga holandayska kula hadlo waxay tahay dad kale waa inayna fahmaan waxaan sheegay diinteenaba waxay qabtaa dadka kale haddaad la joogto dad kale markaad wada hadlaysiin wax dadka kale ay fahmayaan waa inaad kula hadashaa laakiin de waxaan u malin aad arrintaas ma ahayn marka adiga iyo ilmahaaga arrin khaas aad ka wada hadlaysaa in laga wada ee markii saan oo kale miis aad dad wada fadhisaan oo kale in luuqad la wada fahmayo lagu wada hadlo marka kulle waa muhiim in ilmihii af soomaali joogto lagula hadlo af soomaaliga lagula hadlayna af soomaali fasiixa uu noqdo oo cunugii baraysa inuu santanis uu abuuri karo uu samayn karo walaalayaal dhammaantiin waa mahadsantihiin maanta waxayd maalin dheer runtii aada u qurux badan riwaayada la dhigay ee su-aalaha laga jawaabay bakhtiyaar nasiib marka dhalinyarada runtii hawshaas soo abaabushay aada iyo aaday u mahadsan yihiin idinkana ka qaybgalkeena aadaad ugu mahadsan tihiin marka insha allahu kulley waa hadayn doonaa dabadeetana waa iska sii sheekaysan doonaa maalin kale aadan haddii ilaha yidhaha waqti kalaan lami doonaa kulley waxaa kaliyoon raba inaan xuso arrinta cabdikariim mar dhawed uu ka hadlay carruurta runtii waa arrin muhiima laakiin wax badan waxaa naga maqan fikirka ah in dadka magaalo wada degan ama tuulo wada degan inay isku xiran yihiin oo ay yihiin dad wada jira taas ayaa wax walba lagu gaari karaa haddii qof walba gurigiisa uu joogo af soomaali la bartay iska dhaafay qof walba meeshiisa ayay mushkiladu ku haysanaysaa marka waxaa laga rabaa dadka meesha wada degan magaalada ama tuulada ama gobolka intii isku dhow inay iyagoo isxilqaamaan oo isku yimaadaan oo ay tashtaan wixii ay wada qabsan karaan waddankiini markii aan joognay waxaa laga yaabaa carruurta in adiga keliga banaanka markay u baxaan cid walbaa mas-uul ka ah laakiin waxaa laga yaabaa weli dhaqankiinan inta la nimid ilmaha adiga iyo hooyadood kaliya arkayaan banaanka markay u baxaan dee waddanka joogna waa ogtiin marka si loo soo celiya tii waxaa loo baahan yaha dadku inay isku xiran yihiin iyagu ilmahooda ay meel wada geeyaan af soomaaliga dhaqankii diintii taasna aad iyo aad ay muhiim u tahay bal munaasabadda ciidaad ka soo qayb gashay iyo jaaliyadda aad la qaadatay bal shucuurtaada waa mid aan la xaqiiqatan aan la soo koobi karin dareenkaygu waa dareen aad buu u kacsan yahay waxaan ka mid ahaa guddigii wax ka qaban qaabiyey barnaamijkan
expectationkeeda ama maladeeda qaabka siduu wax noqonayaan xaqiiqatan waxa waaye markaan hadda evaluation ku sameeyey waxaan is dhahay way ka weyn yahay ama markaa fiirisid dadka indhahooda iyo sidii noqon wuxuu ahaa barnaamij waqti yar lagu bixiyay haddana marihiisu aad iyo aad u maaragtay xaqiiqatan mira ka weyn ahaa intaan ka filinayn tahay mashcal waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo aan iyagu xafladahan munaasabadaha ciidda ka soo qayb galin iyagana maxaad ku baraarujin lahayd kula talin lahayd wallaahi waa nasiib darro maanta xaqiiqatan ninkii meelahan degan ama Zandam ka tirsan ama amisid sanfo ka tirsan oo aanan hadda fursadan oo kale maanta aan ka qayb galin waxaan u arkaa aniga waa nasiib darro waa maalin farxad leh waa maalin caruurta iyo dumarka iyo barnaamijyo noocan oo kale ay ku wada qayb qaataan maanta waxyaabo fara badan barnaamijka la isku xasuusiyay riwaayad baa meesha lagu soo bandhigay oo ka matashay xaaladda rasmiga ee dadka qoyska Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin waxaa kaloo jiray maaragtay kadis oo aad iyo aad yani dhaqankii taariikhdii diintii wax walba oo lagu soo bandhigay marka waxaan u arkaa fursad weyn ay ahayd qofkii maanta aanan ka qayb qaadin wax weyn baa gafaa isla aaminsana marka ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak marka xiga xafladan iyada ah ama munaasabadan waxaan leeyahay qoladii soo abaabusheena waa mahadsan yihiin si fiicanna way u dhacday dhowr qaybood bay runtii ka koobnayd dhowrkii qayboodba waan joogay waxay ahayd si wax aad iyo aad loogu farxo Allah lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay mana aha markii ugu horreysay maanahay aad baan ugu faraxsanahay runtii sida u dhacayn Amsterdam ayaa degantay adigu mise agaarayda waxaan deganahay Osdorp Westiga Amsterdam aan deganahay waxaan filayaa maanta sida ay u socotay su'aalihii la isweydiinayay guud ahaan waxaan filayaa aad ay ku raali gelisay si wanaas aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana ka mid ahaa oo dadkii ka qayb qaatay su'aalaha inkastoo nasiibkaygu maaragtay u wanaagsanaa maasha Allah maxaad ku guuleysatay markaa wax qurux badan ku guuleystay deganta mise waxa tahay dadka Amsterdam soo booqday aniga Amsterdam dadka area Amsterdam aan deganahay bal shucuurtaada maanta maalinta ciidda wallahi maalinta ciidda maalin waxa way wanaagsan oo ummadda islaamka ee bashbash iyo barwaaqo ku ciidayaan marka waxaan rajeynayaa ummadda islaamka inay Ilaahay ugu dhameeyo ciidan ciid wanaagsan ciidda kalena ku gaarsiiyo bashbash barwaaqo ma ka qayb gashay markaa su'aalihii iyo weydiintii iyo warcelintii wallahi waa ka qayb galay waxaan nasiib u helay in hadiyad hadda aan haayo oo lagu yiri dadka maaragtay hadda xamarkii yimid loogu talagalay inay isticmaalaan marka wallahi waa si fiican u dhacay munaasabaha sidan oo kale Soomaalidu isugu timaada aad ma uga qayb gashaa والله مناسبتان كلي وكقرب قلا لكن مناسبتان ويكدو أنت مناسبتي هوري ومناسبات ميرو بالسكيجي يمد ووطن كورن السكيجي يمد والوضع كرومبي مركز ضد بدن وعيب بدن أنا صار أيام ما أنت جانس سهل لنا صار كان مركز فرحة أسلوب قبل سنة هذه نقول فرح سنة بقول كيف بقول الصومالي ودنا ميركز سجوا تعيد واري عيدنا السنة اللي آدي وحوين بهايد أور سنة ضد هالكان كوعي وحوق عيدي maanta waxay ahayd maalin farxadeed oo aad moodo in xogaa ka weynta ka waasacsantaa ka arrimaanta barnaamijyo badan oo dhalinyarada iyo dadka aad u xiiso geliya halkan laga daadiyay runtii maanta maalin farxadeed ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in Soomaali inta la eg oo magaaladan iyo soonada joogta ay isugu imaadeen inay bal ay farxadda maanta ay ka wada qayb galaan inkastoo aan ognahay in wadankeennii waxyaabo yar haddana ka jirjiraan asagana haddana dabcan waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa in sidaan oo kale ka fiican mar loogu wada farxo soo qayb gashay munaasabada ciidda bal maanta ka waran seeta ma sha Allah farxadeeda maaragtay mid maanta la soo koobi karo maahan ciidda si maaragtay waxay u dhacday oo farxad ku dheehantaa maanta Soomaali badan isku imaaday meesha waxa ka dhacday hadallo badan gobaabin iyo maaragtay farxad badan riwaayadaha lagu soo maaragtay meesha lagu jilaayay qada aad u macaan maaragtay meesha waa lagu jilay maaragtay waa lagu sameeyay adoo hore ma uga soo qayb gashay mise maanta kugu horeyso maanta igu horeyso ka soo qayb galay kuwii hore kama soo qayb gali jirin laakiin meeshaan maanta imaaday maaragtay igu horeysay soo qayb galay ku faraxsanahay jaaliyada sanfo maanta gudoomiyeeda ilaa yaraankeeda dhammaantood si fiican ayaa loogu iiday loogu qadeeyey marka insha Allah waxaan leeyahay sanadkiisa dambe inuu samo Ilaahay nagu gaarsiiyo